kala soco wararkii ugu dambeeyey goob media oo halkan idinka soo gudbi doona. Dalka Somaliland ayaa markii ugu horreysay ka cadho ka muujiyey hadalkii ka soo yeeray ergeyga Jimciyadda Quruumaha ka dhexeeya u qaabilsan arrimaha Soomaalida, waxayna warqad u direen Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa ay ninkaas kaga ashkatoonayaan. Sida ay warqadda ku qorayd waxay sida tan: dowladda Somaliland waa dowlad ka madax bannaan Soomaaliya muddo 3 sannadood ah, markiina horena ahayd dowlad la midowday kadibna ka madax bannaanideedii ka qaadatay 1991. Isla haatan ilaa iyo maanta waxa ay tahay dowlad dimuqraadi ah oo ka madax bannaan dalka Soomaaliya. Waxa uu Mrs James isku khalday arrimaha dalka Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana uu ku xadgudbay qarannimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa uu isku khalday dowladda Soomaaliya federaalka ah iyo Somaliland, taasoo ku ah Somaliland xadgudub. Mar uu ka hadlayay Mrs James Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa ayaa wuxuu arrimaha Somaliland iyo arrimaha Soomaaliya isku dhex qasay, isoona dhexgeliyey arrimaha Somaliland isagoo ku sheegaya dal ka tirsan Soomaaliyada kale. Hase ahaatee, Somaliland ayaa si aada uga xanaaqday arrintaa ka soo yeedhay ergeyga Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa, kuna tilmaantay gef iyo gardarro cad uu geystay Mrs James, waxayna uga digtay inaanu mar dambe ku kicin arrimaha noocaas oo kale ah. Waxay arrintan khatar ku tahay nabadgelyada Geeska Afrika iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Sidaa darteed waxaanu u sheegaynaa golaha Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa inay ninkaas waxay digniin u direen Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa oo ay ku sheegayaan in ninkan ku xadgudbay nabadgelyada Geeska Afrika iyo madax bannaanida qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ugu xadgudbay ay kaga ashkatoonayaan. Sidoo kale waxa ay sheegeen in haddii uu arrimaha dib ugu dambeysa ku dhaqaaqo inay u jarayaan xidhiidhka aanayna la yeelan doonin wax dambe oo cilaaqaad ah, waxayna ka sugayaan inuu arrintaas ka soo jawaabo kana warbixiyo sida uu uga jeeday iyo waxa uu daaranaa hadalkiisii gefki ku ahaa iyo xadgudubka madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Isla markaana waxa ay codsadeen inay digniintii kaba dambaysta ahayd u direen ergeygan Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland. Isla markaana waxa ay caalamka iyo